Anatomy and Physiology. Bismillahirrahmanirrahiim. Kusoo dhawaada cashar yar oo kooban oo sharaxaad ah oo ku saabsan Anatomy and Physiology, kuwaas oo ku bixi doona af Soomaali laguna sharxi doono af Soomaali ahaan. Anatomy and Physiology waxaa loola jeedaa waxaan baran doonaa gaar ahaan human body, jirka bini'aadamka anatomigiisa ama qaab dhismeedkiisa, iyo physiology ama qaabka jirka bini'aadamka uu u shaqeeyo. Ilaahay subxaana wa tacaala marka la fiiriyo diin ahaan muslim ahaan waxaan aaminsanahay in aayad iyo calaamad ay ku sugan tahay bini'aadamka sida ilaahay uu sameeyey. Marka waxaan arki doonaa qaabab badan oo jirka bini'aadamka uu samaysan yahay iyo shaqooyin badan jirka bini'aadamka uu qabto in aayad ay ku sugan tahay. Muslim ahaan haddii aan naga fiirino aayad ayaa noogu sugan. Marka chapterkan wuxuu ka hadlaa waa introduction to human body, hordhac ku saabsan jirka bini'aadamka ama anatomigiisa iyo physiologigiisa gaar ahaan baran doona. sida sawirka meesha saaran idinkaga muuqato, sawirka waxaa ka muuqdo qof bini'aadam ama waxa loo yaqaano blood pressure-ka, qof dhiigga laga cabiraayo ayaa meesha ka muuqdo, ama blood pressure-ka. Muhiimaddu waxay tahay marka qofka in anatomiga iyo physiology-ga in uu si fiican u barto waxay asaas u tahay xirfadle kasta oo caafimaad ama qof kasta oo raba inuu caafimaadka wax ka barto. Waxaa muhiim ah inuu wax ka yaqaano anatomiga iyo physiology jirka bini'aadamka. Hadda sawirka meesha ka muuqdo, qofka sawirkaas sameynayo wuxuu yaqaanaa anatomy ahaan waxa uu sameynayo iyo physiology ahaan meeshaas ama shaqadaas xubintaas shaqada ay qabato wuu yaqaanaa. Marka blood pressure-ka waa xirfad ama skill ka mid skillka caafimaadka oo aada u fudud muhiimna ah. Si skillkan u samaysid waxaa muhiim ah marka inaad taqaanid anatomy iyo physiology inaad ka taqaano. Marka kuwaan waxyaabo kaloo badan ama durin ha ahaado ama daawo qof in la siiyo ha ahaado, ay shay qofka inuu yaqaano anatomy and physiology muhiim u tahay. Maanta marka waxaan ka hadli doonaa chapterkan koowaad waxaan kala saari doonaa anatomy maxaa la dhahaa, physiology maxaa la dhahaa, meeqa qayb ayay u kala baxaa mid kasta waan baran doonaa. Waxaan kaloo baran doonaa inaan qeexno ama describe gareyno qaab dhismeedka jirka ayadoo laga bilaabayo from simplicity to the complex. Qaab dhismeedka ugu fudud iyo qaab dhismeedka ugu adag waan ka hadli doonaa anagoo fiirinayno 6 level ee macnaha uu jirka u habaysan yahay. Jirka bini'aadamka uu habaysan yahay 6 level ayuu u habaysan yahay. Level 1 qaab dhismeed uu leeyahay, level 2 qaab dhismeedka, level 3 level ilaa iyo 6 level oo jirka bini'aadamka u samaysan yahay. Taasna waa arki doonaa, qeexi doonaa. Waxaa kaloo qeexi doonaa calaamadaha shaqada ama shaqada lagu garto jirka bini'aadamka nolosha inuu nool yahay. Jirka bini'aadamka calaamadaha astaamaha shaqo ahaaneed ee lagu garanayo shaygan ma noole iyo noole oo soo arag biology lagu arkaa sooma. Shaygan noolaha calaamadu leeyahay lagu yaqaano, shayga aan nooleyn calaamadu leeyahay lagu yaqaano. Marka jirka bini'aadamka noloshiisa calaamadaha muujinayo ayagana ogaan doonaa in jirka uu nool yahay, calaamadaha muujinaya jiro. waxaa kaloo baran doonaa 4 shay oo looga baahan yahay jirka bini'aadamka ama humanka bini'aadamka inuu noolaado. 4 shay oo looga baahan yahay. waxaan kaloo baran doonaa waxa loo yaqaano homeostasis. jirka bini'aadamka markuu shaqeynayo waxaa jiro process ama hab loo yaqaano homeostasis oo jirka bini'aadamka noloshiisa lagu joogteeyo.
iyo muhiimadda ay leedahay homeostasis-kaas waa arki doonaa. waxaan kaloo marka baran doonaa inaan isticmaalno anatomical terminology-ga oo erayo ku habboon iyo jirka qaybihiisa kala duwan, qaababka jirka macnaha istaraatiijiyada uu ka samaysan yahay, terminology loo isticmaalayo. jirka body region waxa lagu leeyahay, jirka waxaa loo qaybin doonaa gobol wax la dhahayo. jirka waxaa kaloo loo qaybin doonaa direction, jihooyinka jirka. intaas dhan waxay leeyihiin terminology u gaar ah, taasna waa arki doonaa. waxaa kaloo marka isbarbar dhig ku sameyn doonaa ugu yaraan 4 medical imaging techniques, 4 qaab oo jirka imaging wax loo suubina, ama jirka scan ha ahaado, MRI ha ahaado, iyo shaqada ay qabtaan iyo qaabka loo isticmaalo marka la fiiriyo daawada ahaan ama medicine ahaan marka la fiiriyo, waa arki doonaa. intaas shay marka waxaan ku baran doonaa jabtarka maanta. anatomiga waxaa loo arki karaa ama la dhihi karaa waa baahi si aada loogu baahan yahay markaa caafimaad baranayso. marka anatomically ama physiology ahaan sharaxaadda aan bixin doono marka waxay kaa caawin doontaa qeybo kamid a noloshaada. inaad fahamto anatomy iyo physiology marka keliya muhiim uma ahan xirfadda caafimaadka oo kale, sidoo kale waxay muhiim u tahay adiga caafimaadkaada muhiim u tahay in anatomy iyo physiology aad barato. in jirka baniaadamka si fiican aa u taqaano waxay kaa caawin kartaa in ikhtiyaar fiican oo caafimaad qabo iyo waxqabad deg deg ah oo ku habboon inaad qaado macnaa markii calaamado xanuun ama calaamada xanuun markaa isku aragto kale. isla markii in aad ogaatid meesha laga haayo oo go-aan deg deg aa qaadan karto, markaas meeshaasaa laga haya dhihi karto si caafimaad aa u doonato oo nafsadaada aa ku anfacdo. tusaalahaan oo kale haddii aad taqaano anatomy ahaan kelida meesha ay ku taalo, haddii markaas aad hore u taqaanay kelida meesha ku taalo, meesha ku xanuunayso, inay kelida tahay, inay meel kale tahay, inay muruq tahay, muruqaha positionada ku kala yaalin, lafaha meela ku kala yaalin, ilan haddii aad kuwaas aa kala taqaanid si fudud marka meesha laga hayo waa ogaan kartaa. xanuunkaada si deg deg ayaa markaas ugu horti kartaa, dhibaatadaada caafimaad si deg deg ah ugu qaban kartaa. markaas aqoonta aa u leedahay anatomy and physiology-ga waxay kaa caawin doontaa inaad wax ka ogaatid nutritionka wax loo yaqaan ama nafaqada. nutrition kala duwan, jirka qaabka uu nafaqada u qaato, qaabka jirka wax burburiyo, wax badan ka ogaan doontaa. medications, daawooyinka iyo qaabka loo qaato, wax badan ka ogaan kartaa. ileen daawooyinka markii jirka la isticmaalo shaqo gooniya qabtaan. physiology ahaan haddii aad taqaano marka xubinta shaqada qabanayso, daawadaasna waa fahmi doontaa shaqada ay qabanayso. medical devices oo kale waxbaa ka ogaan doontaa. marka sidoo kale qalabkaas caafimaadka waxbaa ka ogaan doontaa. procedurada la qabanayo kale, markii procedure la qabanayo caafimaad, anatomy muhiim waa. marka anatomically meeqa xubnooda meeshaan ku jirto, maxay shaqo qabtaan markaad taqaanid, ama qaliin marka la sameynayo, ama waxyaabo kale marka la qabanayo oo procedure ku saabsan caafimaad. ay procedure caafimaad ku saabsan anatomically meeshaas jirkaas aa wax ka qabanayso waa inaad taqaanaa anatomigeeda, maxaa ku jiro neerfo, maxaa ku jiro, maxaa xidid ku jiro, maxaa halbowle ku jiro, shaqada meeshaas ay qabato maxay tahay, shaqada meesha ka socoto maxay tahay, oo physiology ahaan. taasna inaad wax ka ogaato anatomy iyo physiology kaa caawin doono. sidoo kale wuxuu anatomy iyo physiology kaa caawinaa inaad wax ka fahamto cudurada genetic ah ee lagu dhasho, iyo cudurada la kala dhaxlo, iyo cudurada infection disease, iyo cudurada faafa. waxbaa ka ogaan doontaa qaabkay u faafaan, sidee u faafaan, kulli waxaa kaa caawinayo in anatomy iyo physiology wax ka taqaano. marka waxaa la dhahay marka mar uun qofka bani aadamka laga yaabay inuu dhibaato caafimaad uu la kulmo oo qayb jirkiisa ka mid ah. marka in aqoon aa u leedahay anatomy physiology waxay kaa caawin doontaa inaad noqoto waalid wanaagsan. ilan anatomy physiology haddii aad taqaano, haddii ilmahaadoo kale ama caruurtaadoo kale dhibaato caafimaad aad ku aragto, anatomy iyo physiologyna aad taqaanid, waa fahmi markaas sida wax u socdaan aad fahmaysaa. markaas waalid fiican noqonaya, lamaano fiican waa noqon kartaa, oo qofka lamaankaada in caafimaadkiisa iyo xanuunkiisa aad si fiican u fahamto,
partner saaxiib fiican oo kale, qofaa shirka ku tegin oo kale, ama saaxiibkaada gaarka oo kale, ama dadaa wada shaqaysiin, ama inaad noqoto qof caregiver oo daryeel bixiya ama shaqaale caafimaad oo kale inaad tahay. qofkan xanuunkiisa fahmaysaa, anatomically physiologically waa taqaanaa, xanuunkiisa wax fiican ka qabanaya markaas. intaas dhan marka waxaa kaa caawinaya anatomy iyo physiology inaad ka taqaano. marka chapterkan koowaad waxaan ku arki doonaa overview, aragti guud ama sharaxaad guud inaan ka bixino anatomy maxaa la dhahaa, physiology maxaa la dhahaa, iyo jirka baniaadamka xubnihiisa kala duwan, gobolada jirka baniaadamka uu leeyahay, shaqooyinka uu qabto jirka baniaadamka si guud sharaxaad guud laga bixin doonaa. calaamadaha qofka ama jirka baniaadamka ama noolaha calaamadaha lagu garto, sida jirka uu shaqeeyo, sida jirka macnaha uu isku dheelitiro xaalad caafimaad dara markay imaato qaabka jirka normal uu isaga dhigaa asiga. sida caadiga jirka baniaadamka markii dhibaato ama caafimaad daro soo wajahdo ama cudur uu soo weeraro, jirka baniaadamka wuxuu isku dayaa inuu isxalleeyo asiga. taas waxaa laga yaqaanaa marka inuu jirka stable iska dhigo, uu isku dayaa wixii markaas jirka ka adkaado waxay noqdaan calaamad. jirka wuxuu soo bixinaa calaamad sheegayso in uu xalli waayo arrintaas. marka calaamadaas maxay sheegaysaa in cudur jirka uu ku jiro. marka sidoo kale anatomy wuxuu ka caawin doonaa ereyo laisku raacsan yahay, laisku waafaqsan yahay oo loo isticmaalayo qaab dhismeedka jirka, iyo waxa la yaqaano position jirka uu leeyahay. planes waxa la xariiqmo jirka dhex oo qiyaas loo qaato, gobolada jirka loo kala qaybinayo, waxaas dhan waxay leeyihiin ereyo u gaar ah. marka ereyadaas waa baran doontaa hadduu ilaahay yiraahdo, kuwaasoo aas u ah in aad si fiican u fahamto anatomy and physiology. taasoo ereyadaasna waxay ka caawin doonaan markii gudaha aan sii galno in aan terminology isticmaalno, ama xarumaha caafimaadka markii la joogana waa la isticmaalaa ereyadaas oo anatomy physiology lagu baranayo. tusaalaan qaybta dambe waxaan ku baran doonaa medical imaging, waxaa la dhahayo kale x-ray, MRI, CT scan oo lagu arko jirka gudihiisa. waxaasoo dhan marka jabtarkaas ku baran doonaa. waxaa inoo baranaa jabtarka koowaad iyo sharaxaadiisa. qaybta hordhaxan intaas kusoo koobaynaa. anaga si jabtar waxaan ku sharxi doonaa anatomy maxaa la dhahaa, physiology maxaa la dhahaa, iyo qeexitaanada iyo waxyaabada aan sheegayno dhan aan ku arki doonaa. waxaana baran jabtarka labaad.